Avrupa'da son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının her gün yeni ve endişe verici emareleriyle karşılaşıyoruz. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale weerar dhanka afka ku qaaday dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron taasoo ku saabsan siyaasadaha Faransiiska ee ku wajahan nacaybka muslimiinta. Mr. Erdogan ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Faransiiska u baahan yahay baaritaan dhanka maskaxda oo uu yahay mid aan caafimaad qabin. Isagoo ka hadlayay gudaha dalkiisa Turkiga ayuu hadalkan sheegay madaxweynaha dalkaasi. If my father is Muhammad, have respect to the God. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص من حقه ويرسم اليوم برسومات لا يعلمها إلا الله، ثم لا نجد حتى لا حكومات ولا شعوب تنتفض من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم محمد رسول الله، محمد رسول الله، تكبير، 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 لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من ثاني وجب أيها